war degdeg ah oo na soo gaaray daawadayaal ayaa waxa uu sheegayaa in ciidanka kumaandooska gorgor gaar ahaan guutada 18aad ay gaareen degmada Wasiil ee koonfurta gobolka Mudug. Warbixin ayaa kaga haya dhanka kale daawadayaal halkan waxaan kula wadaagi doonaa maamul goboleedka Galmudug oo ku jira diyaar garowga ugu dambeeyay kaas oo lagu diyaar garoobayo wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka kooxda Khawaarij Al-Shabaab. balse koox daawad intaan kula wadaagan xogtan oo dhameystiran haddii ay tahay markuu horeyso muuqaalku soo gaar muuqaalka Lexar sina share garay qaybta hoose ee commentigana nugula wadaag aragtidaada. aynu ku bilawnay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Mudug kan degmada Wasiil iyo saraakiil ciidan ayaa maanta duleedka degmada Wasiil waxa ay ku soo dhaweeyeen cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka gaar ahaan kumaandooska gorgor kuwaas oo safar dhulka uga soo ambabaxay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. ciidankani ayaa maalmahan waxa ay ku soo jireen wadada xiriirisa Muqdisho iyo Wasiil ayagoona ugu dambeyntii maanta gaaray duleedka magaalada Wasiil ee koonfurta gobolka Mudug. ciidamadani ayaana waxa ay ku biirayaan dagaalka Khawaarij looga xoreynayo koonfurta gobolka Mudug iyo guud ahaan dalka oo dhanba. gudoomiyaha gobolka kan degmada Wasiil iyo saraakiil ciidan ayaana sheegeen inay ku faraxsan yihiin inay maanta soo gaaraan ciidanka kumaandooska gorgor. saraakiisha hogaaminaysa ciidankani ayaa iyaguna dhankooda waxa ay sheegeen inay door weyn ka qaadan doonaan ciribtirka Khawaarijta maadaama ciidanka kumaandooska gorgor si gaar ah loogu bartay dagaalada adag ay kula jiraan kooxda Khawaarij Al-Shabaab. kuwaani waa guutada 18aad ee ciidanka kumaandooska gorgor waxa ayna ahaayeen ciidamo in muddo ah cashiro u dhigaya kooxda Khawaarij Al-Shabaab. gorgor haatan waxa ay ku soo laabatay furimaha dagaalka waxaana la filayaa in toddobaadyada soo aadan ay wacdara ka dhigto koonfurta gobolka Mudug. dhanka kale daawadayaal maamul goboleedka Galmudug toddobaadyadani waxaa si xoogan uga socday abaabul xoogan kaas oo loogu diyaar garoobayo wajiga labaad ee dagaalka dhanka kooxda Khawaarij Al-Shabaab. howlgalkani ayaana la filayaa inuu bilowdo toddobaadyada soo aadan iyadoona heegan buuxda la gelshay dhammaan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa xoogga deegaanka ee loo yaqaan Macuusleyda ee ku sugan maamul goboleedka Galmudug. waxa ka socda qorshihii dagaal ee ugu dambeeyay taasi oo la filayo in maalmaha soo aadan deegaanada Galmudug ay kaga dhuumaalaysanayaan haraadiga kooxda Khawaarij Al-Shabaab laga sifeeyo. dhammaan haatan waxaa soo harooday cutubyada kala duwanaa ee ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ee ku maqnaay fasaxa iyadoona heegan buuxda la gelshay dhammaan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ee ku sugan deegaanada maamul goboleedka Galmudug. ciidanka maanta gaaray degmada Wasiil ee koonfurta gobolka Mudug ayaana waxa la filayaa in toddobaadyada soo aadan ay ka howlgalaan deegaana ku tirsan Shabeelow halkaas oo ay ku dhuumaalaysanayaan xubno ka tirsan kooxda Khawaarij Al-Shabaab. daawade haddii aan la soo gaartay dhamaadka muuqaalka Lexar sina share garay soo kale ku soo bir boggaan si ay ku soo gaaraan xogaha degdega ee macluumaadka aan ku baahinaa halkan.